waddanka Djibouti iyo waddanka Eritrea ayaa waxaa muddo dheer ka dhaxaysay colaad ka dhalatay ismaandhaaf dhinaca xuduudka u dhaxeeya labada dal. haddaba 450 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi Qatar ayaa hore u ahaa ciidamada nabad ilaalineed ee waddan kasta ku ilaaliya goobta loo cayimay. ciidamadii nabad ilaalinta ee waddankaasi Qatar ayaa baneeyay kaalintii nabad ilaalinta iyagoo dib ugu noqday dalkoodii. kadib khilaafkii dhinaca siyaasadda ee wadamada khaliijka ayaa ciidamadii nabad ilaalinta ee waddanka Qatar waxay baneeyeen kaalintii nabad ilaalinta iyagoo dib ugu noqday dalkoodii. ilaa haddana ma jirto waddan kale oo ka mid ah jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay ku qortay bedelkoodii. arrintaasi iyo waxyaabaha ka soo kordha iyo saameynteedaba waxaa shir jaraa'id ku qabtay magaalo xeebeedda Tajora wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf. wasiirku waxa uu sheegay marka ugu horeysa in mar kastaba ay diyaar u tahay dowladda Djibouti in ay xiriir diblomaasiyadeed ku dhamayso mushkiladda. isla markaana waxa uu sheegay in haddii ay ka fursan weydana ay diyaar u tahay in ay xuduudeeda ku difaacdo dalkeeda. wasiirka oo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yiri markii ay dhibaatadu ay ka dhexdhacday dalalka khaliijka dawladda Qatar ayaa go'aansatay inay wasaatada ama dhexdhexaadista ay dhexdhexaadinaysa Djibouti Eritrea ay ka baxdo oo ciidanadeedii dumeero joogayna ay ka qaadato. kolka wararkana soo gaadhaya waxa weeyaan inay ciidanada Eritrea inay meeshii ay ku noqdeen. kolka waxaad ogaataa waxaa jira go'aan uu qaramada midoobay qaadatay sanadkii 2009 ee sheegaya inay dad quwaadka ama ciidanada labada dal ay ka durkaan meeshaas ilaa aan xal loo helayo xuduudan la jeexaya. kolka haddii Eritrea ay meel ay kaga dhacday go'aankaasi kulliba adduunweynaha iyo mujtamaca dawliga ayaa u taala qaraarka ay ka qaadan doonaan Eritrea. annagu haddaan Djibouti nahay haddii dhinaca military hadday tahay ciidanadeeni waan geynay dumeera haddii kale haddii la oranayo diblomaasiyadda wax lagu xaliyana waxaan u jeedinay dhambaalo qaramada midoobay agaasimaha guud ee qaramada midoobay dhambaal baan u jeedinay. waxaan u jeedinay dhambaalna ninka xogeyaha guud ee ururka Afrika Musa Faki iyo dalalka Carabta. kulliba Djibouti dal nabadoon weligu ahaan jiray. kolka xalka diblomaasiga iyo siyaasiga ayaan horeysinay. haddii ay Eritrea ay ku adkaysato xalka militarina Djibouti gobjoog iyo diyaar bay u tahay ciidanadeenina way joogaan dumeera. dhinaca kale waxaan wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cali Yuusuf weydiiyay bal in uu nooga warramo waddanka Sacuudiga oo labada dalba xiriir wanaagsan la leh inuu buuxin karo kaalinta waddankaasi Qatar. waxaanu ku jawaabay taas waxay u taalaa qaramada midoobay waayo qaraar iyo go'aan baa lagu gaaraa waxaas dalka badili doona dawladda Qatar. dalkaasi waxa dooranaya kulliba sidii aan sheegay qaramada midoobay. haddana waxaa loo baahan yahay in Djibouti iyo dalka Eritrea ba inay raalli ka noqdaan qofka dhexdhexaadisa ku dhaqaaqi doona. haddii kalena de kulliba Sacuudiga aad sheegtay waxba kama qabno laakiin dalal kalena way ku dhaqaaqi karayaan shaqadaas baan leeyahay anigu. علي أحمد رابي علي سيو ساب TV Tajora Djibouti.